.com fanbroach.com بدنا maxaa ku dhacay ninkaas xun ayaa loo garaacay laakiin nasiib wanaag madaxiisa waa uu badbaaday haddii kale waa uu dhimo lahay ninkan waa maxay dhibka jira hagaag ninkan fiiskaal ahaan aad ayuu u wanaagsan yahay balse maskaxdiisa ma soo noqonin mana shaqaynayso dibka ku haysta maxaa waayana ii sheeg magacayga ma xasuusti yaa akhay adiga magacaaga waxaa waaye fiirsiin kadib isagoo dhan waa uu isku qasqasmay maskaxdana waa uu kala balabaysan yahay mana hayno ninkaa meel aan ku xisaabino laakiin subaxyada subax ka mid a ayay maskaxdiisa dib u soo laabatay magacayga waa xasuustaani ma arki karaa dembiga waxaa gasha maskaxda eedana waxaa qaata jidhka qofka isagoo eedaysanaa la soo qabtaa ugu dambaynna maxkamadda ayaa la keenaa si marka loo fiiriyo qofka waa dembiile haddana dembiile maaha taasna wareer fara badan ayay dhalisay idinkana waxaan idinka rabnaa kiiskan si wanaagsan oo qurux badan inaad nala fiirisaan iyo xukunka ay maxkamaddu gaarayso filimkan waxaa lagu tarjumay kiis noocan oo kale ah sanadkii mar ama laba jeer ayuu dhacaa kiiskanna waa kiis si dhaba u dhacay oo xaqiiqa ah caruuray horta waxaad fahantaan kani waa banooni waxyaabo fara badan waa lagu samayn karaa mararka qaarkii isaga naftirkii ah la qabta waa la tuuraa marna si toosa loo tuuraa marna waa la saraa ya royd aabbaagaa yimid waa i fahanta soomaan adiga qabo marka banooniga waxaan ku dhahay marna sar marna si toosa tuur okay isku dayaa nabadey beriyaan salkayna baay hay sitaa gaariga fulya way saaxiibkayga oo fiicanahay iska waran adiga xaaladaada niyo beriyii hore waan wada ciyaari jirnay beriyaan sooma malaysid ciyaarta inaan u xisn adin daacada bayd goormee khiyaanada bilowda saaxiib mashquulkayga ayaa batay ciyaalka la dil kiiskooda ayaa aniga lee xilsaarhambalyo waa lagu dalacsiinaa oo bacdeen dalacsiin kara dalacsiinta ag sheekeynayso maxay tahay niyo aniga qumanahayga ayaa qoorta iigu jira waa ka gudbi doontaa haa laakiin marka dambe labadeena geemka wada ciyaarana ayaa tagay نيو ساحو أنا تتكان شركة كشخيان وبلايا ومامول كان كذا معنيها مسوا خبا لو ده كدب جاري حتى ملوك سوسي هاي runtaa miyaa saaxiibkay duurka maana la soo diray hadda masina nagu culumaad rabaa marka masmaan qaba karnaa marka masma tabartiisa ونك وكاذب وكل شيء هذا بحاول تجدي كله دور كان كودرا qiican maxaa waa saaxiibkay waxaan maleynaa waxaan isgubta laakiin hadda waa tagayna biyan ku shubina okay ay soo socay waa ordina maxasibay luwa soo kala furso carar soo carre waa soo ordo soo ord arshil qoos soo ord على الكوس soo ord soo ord dhagax madaxa filiyay oh no wala gacan gali
صاحب ما سوق كالي دقسو وحنو باهنا مشى علينا كشوف كالي هاي ما تجن ناك ولا عوكله صبح حالك النايت دقسو شي شاتي ها بلانكن حوقايا صدق جديد labadiina meeshaan maxaad ka soo danteena tali aniga arday ayaan nahay jaamacad ayaan wax ka baranaa weliba qaybka caafimaadka oo xayawaanada sidaas darteed markaan aniga ku intimaanayn baawur ayaan arkan markaan soo laabanane soo naqadkeena dhibkan ayaa la kulan aniga gaariga taargadiisa ma xasuustaan may waxaan u malaynaa 861 inuu yahay ama waa tali 168 raam waxaan ka rabaa waddada inaad ii xirto waya tali hey وريستك حيوان اما ما غشتنا استاكل يا واكو سلامة كويو ما فارس هيا وانت عيسنتها يا اخي كواوي سميس قاري قال وحبان واكو سلامة waan kaa qaadir runaantii saan kugu mahad celi maba aqaano carruurta wax wanaagsan ayaad ina ii mahad celis looma baahno wax walba way qoran yihiin soo gudub maxaa kugu dhacay gacanta bool kirkeedka iga dhacay haa waan gartay sanadkan guddigu waxay dooratay adigu inaan meesha marti ka noqoto هاي سؤال guriga waa kana gurina siina waay maalin walbana gaarigaas bartaas ayuu ku baakinaa waan arki jiray aniga ka hubo waayahay adiga ninkan aad la joogaysaa idinkane meeshaan oo dhan baaritaan waa inaad ku samaysaan dhaqsada hayna mariya idinkane عيل بدنا هاي فيرسين
shaam iyo shaymaalaad dilkooda ayaa lagugu soo eedeeyey xarig ayaana tahay saaca wixii ka dambeeya maxaad ku hadlaysaa taliya sidee wax u jiraan maxaa kaa khaldan saaxiib ma waxaana lagu kaftamaa yaa akhay ii xidha xajid ukaadiya buuqa faraha badan waa inaad joojisaan buuqa joojiya tartiib deganaan muujiya buuqa joojiya tartiib baa isfahanna dhammaantiin isdejiya tartiiba carruura idhegaysta yaa akhay booliiska shaqadooda ha qabsadaan wax walba way fiicnaanayaan anigana waan idiin soo laabanaya idinkana tababarkiina waa inaad ku laabataan okay iga lexda markaa socda yaa akhay ciyaara carruure dib u laabta ordaha kaaga naawe virow sidaan maxay ahayd saan maxaa kugu kalifay ii sheeg bal maxay tahay adigala ii sheeg yaqay maxaan samayne jilliinkan faraha badan iga jooji niyo adiga si wanaagsan ayaad ii taqaanaa waadna og tahay 10 subaxnimo inaan soo kaco kadibna garoonkaas ayaan galaa ciyaalkan baraktiis sameeya kadibna idinkaan idiin maada habeenkii tan kale baryaan adeerkayga xaaladiisa runtii ma wanaagsanayn isaga ayaa labada isbuuc la soo dhaafay la joogay warkayga haddii uu tashwiish kaaga furayaan kalkaalisada baryaan isbitaalka joogta ayaad soo weydiin kartaa inaan isbitaalka imaanayo waxaan wax ka wanaagsan ayaad samayn kartaa isbeddel maad samaysid maxaan iska beddelaa maxaan sameeyey runtii waad ogtahay aniga inaan kugu kalsoonahay باورك تبديسي يحرنو هذا وما ستين سودوينتين هذا وفرحت براو عليك المهي جود قريان سيجلا هذا مشكلتك انت وضع هي ما حد هاي هي مشكلتي واكن اي درتي هديدي ولا صعدان wax walba diyaar ay ku yiin xabiibti sawa zaclaan kan hatta wax yar la ii dhalo cadeelno in yar la bis tan kale hatta ay jooy xabiibti no say wax kay hay tahay war ilmi waa bashaalowaan wixii akeenta ku keenayso ilmi waa bashaalowaan banoonigooda oo keen wax walba u sameey adiga hadiidaad waa ku keen war maxaan sameeyaa iska badan ana dilka badan ma ka shaqaa abukaata le ya maxaa weyn aniga ma keeni kan aniga waad iga farxisa markaan waxa loo baahan yahay xooliga ma waa lagu soo qaltay kalmaan aniga ma ma ta xasameeyno oo ku biya irse tartiib loo ku biya xabiibti ilmaha dartooda u sameey ay telefoon rayso mudanaha yasuga haatali amidi dhageyso ninka caruurta leynay gacanta lagu dhigay وانا نيكا فيرزين لغو مقعابو مدن ما يغوبتا لكن ها وروا لغاهو بانيو وانا فيرزين كري قدانك اها سيوان ولا سعو لكن دادك هدوت امي لباتن لغا سو غارسيان كيسكان سيدا درتيد ايان با اديغو كو دورت علايس فربدن با كيسكان كجرا مدحدا نغا سريسana il gaareen nagu hayaan state government-iga ogow inay dhaqdhaqaaqina la socdaan mudane kalsoonida ay soo kaaga mahad celinaya madacilna noo dambeysay 9 subaxnimo bariyaa noo balana أميت أساس مجرى حوالي النفط أسكع ذبح كلام مجرى لا بو سامو في عندنا حفلتنا اللي كان ديارنا وح الله لو واحد دونتنا وكوسو بنا قعلس دوقة كعيار شيش قال قفي waxbay ma oran sameeyaa باي باي adigu danaysta ayaa tahay danaysto kaliya ayaa tahay dan kalena ma lihi وانا ogolahay aniga danaysta ma ahay laakiin hooyada qof xun ma ahay naftaada kaliya ayaad ka taxadirtaa adiga xataa danaysta ayaa tahay laakiin adiga midaas ma ogid ka joog maxaa samaynaysaa باشا هيلوين
hay andrag waa is xasuustay sida wax jiraan allaan ku dhaartay dowladdan mid burburaysa waqtaa jaysino tv-ga daarabal booliska laknow ayaa gacanta waxay ku dhigeen fiirsiin oo ahaa nin aad iyo aad u wanaagsan carruurtana xanaanayn jiray booliska ayaa waxay ku eedeynayaan carruurtaas agoontaa laba ka mid a inuu dilay tillaabada dowladda ay qaadda waa mid qaldan tillaabada xigta maxay noqonaysaa sababta ay dhees fiirs maxad ku wadaa dowladdu haddaba go'aan bay gaartaniyo sharci iyo nidaam in lagu dhammaano waa loo baahan yahay ninka carruurta dilay waa fiirsiin adigaa u doodaya abukaatana u ah xukunkanna waxa uu ka soo baxa aqalka sare la soco wareed ciyaara wadaa yaysan kaa hoos bixin doorashana waa ay jirtaan niyo ismuuji haddaad kartidaada bannaanka keento xil baa lagu magacaabaya dowladda soo socota diyaaran aan hoos waa qabanaa aabba ninkaaga saaxiibkaaga ayuu ahaa waxyaalaha adiga samayn jirta ayuu samayn jiray laakiin farqi aadan dhexeeya booliska lakno waxa ay samaynayaan ilaa iminka wax qaldan weeye jief ministerka xitaa amar waa ay ka diideen waxayna diideen fiirsiin in dammaanad lagu sii daayo gacantay ku soo dhigeen waxaana ay keeneen laknow central jel iminkana waa uu ku xidhan yahay bastiyaal fornaatiyo adduunyada soo cunteen haddana kaalaya bariiskan qaliilka cuna caddaanka marqa waa iga dhammaada hore u soco mayaan ku dhahay kuma siinaayo ee hore u soco ordee dooradan arkimay sida socodee dhaqaaji waxay waxan haddaa qaadinaysid leendhanaantaas iyo waxaas oo meesha yaal qaado waxaan idin weydiinaa fiirsiin aqoon intee leeg ayaad u leedihiin idinkaan idin weydiinaa sidaad ogtiin ninkan udaan ayuu ka yimid waxaan rabaa inaan qaraabada u degan udaan wax ka ogaado ee dhegeysta isdejiya sumcadda fiirsiin annaga ha noo dambayso keliya caddeen sidai aan ku heli lahayn waa inaan baarnaa dembiga dhacay caddayntiisoo keliyaana laga rabaa qol saxanaad soo gashay soo dhow ayaan ku dhihi lahaa ileen kiis dil ayaa lagu haystaa dilkaas ma ku dhacay kadib adiga booliska dabagal ayay kuugu sameeyeen waxaan soo caddaatay adiga inaad ku maqnayd adeerkaaga oo xanuunsanaa weliba muddo 2 isbuuc soo sax maad halkii waxaad ogaataa taliyaha aniga kiiskan igu soo oginoo saaxiibkayga yahay koley aniga waxaan filaa adiga wax saaxiib inaadan lahayn laakiin dhib ma lahan saaxiib cusub ayaad yeelinay anigaa saaxiibkaaga naqanaya magacaygana waa jaysin heerkan sharafkaaga ayaa ku soo gaarsiiyey midda kale waxaad ogaataa aniga kiiskayga inaadan waxba ka qaban karin aniga waan ogahay qarashkayga in aadan bixin karin laakiin hawshan cid kale ayaa i soo dirsatay waxaan ogahay hawshan aan guulaysanayo sababta wax kale maahan kiiskan markaan guulaysano kadib ayaan wax walba ka wada hadli doonaa waan dareemi karaa abukaataaga hore xogaa inaad isku dhacsan tihiin hadda warqadaan akhriso kadib saxiix inta dhammaan anigaa ku dhammaystiri doona aad baad mahadsan tahay alaab ayaa meeshaan taalo alaabtaas isticmaalkeeda lacag ayaa lagaga rabaa qolkan daadaashaha ayaa ka taliyey canshuurta kaashahaan ma u bixinaysaa mise sidaana u bixinaysaa canshuurta haddaana bixinin xal cadi hataa ma helaysid raashin hataa iska dhaafee kasoo fikiraan ku dhahay
shuglaayo waa ku baryaa makaani gaariga ii geeniyo oradan ku jiraa صدير مجد garsoora waa imaade al istaago kiiska nambarkiisa oo yahay 332 waxaa lagu soo eedeeyey fiirsiin dhibanayaasha waxaa u doodaya master Amit Kumar eedeysanaana waxaa difaacayo master Jaysin aad baad u mahadsantahay haddana kiiska ayaynu furaynaa eedeysanaha iyo dhibanaha labada qof ay u doodaya waxaan rabnaa xeerka iyo nidaamka inay ilaaliyaan haddana bilaaba waa mahadsantaha mudane 5 sano la soo dhaafay mudane 38 ka mid ah carruurta soo galootiga ayaa lagu dilay waddankeena waan ka soo jeedaa garsoore صديلحس الملواي الكيسكان وحبا مسكجلين جيسين أديكو محسن نظام كي قانون كمحكمة دويا لها كو عيارين نمكن دودي سي تعودي هذا ما يستكتب يدك ليسا فريسا أديكا تضو ذنكرت أديكو هروسع دقيقة مدن قرصور ميدتك أن سوهل نردن لما أنتو الدب أيا لقبتسي وحانا لو قبتسي سي وجهود أن لو فهمين marka laga reebo shaam iyo shamaalaha labada qofood oo ku sheegayna waa kuwa sawiradooda labadan carruur runtii waalidiintooda ayaa meeshan fadhan waana igu ceeb waxyaabihii lagu sameeyay inaan ka hadlo waxaan ii wanaagsan inaan ayaga fasax ka qaato si aan uga hadlo waxyaabihii lagu sameeyay maxkamadda horteedan raali gelin ayaan ka bixinaa intaan doodan ka hadlin shaam iyo shamyaala jirkooda haaf ayuu ka gubnaa booliskana baaritaan ayay sameeyeen eedeysanahaas oo meeshaas fadha ayay gacanta ku soo dhigeen annaga runtii waa ognahay fiirsiin inuu yahay nin wanaagsan laakiin waxaan rabnaa dembigan lagu soo eedeeyey in aan soo caddayno dadkana aan tusno inuu yahay dembiilaha dembigan geystay garsoor aadaa umaasan tahay runtii adiga dacwadan ma ka furaysay waxaad ku sheegtay جيرسين شرف السمعة انتبه برشة دحيل او كلية هاي سوسع ما ذلكية شنت سنة صدى فاي صدى إسداع رور أيا لا أي هاي وحن لا يبنها إلى هاد الكاس قعدت لهم صدقين مدن قرصة أدقين وتوقتها هاي قردو دورشين الخبن دونا نيكوشان قد بينا طلعوا نوع سوكالي مركلة أيو خالي كران إيه أسيقو حقوق هاي dad kale inay arrintan garab ku siin karaan teeda kale mudana garsoor waxaan ku weydiinaa fiirsiin ma kula tahay fal noocaas oo kale inuu gali karo ha iloowin ninkan inoo ku tirsanaa ciidamada dambaarista oo weliba dalkeena qofkan dalkeena wax badan ayuu u soo qabtay wuxuuna mar walba tababar siin jiray carruurta mustaqbalka leh wuxuuna mar walba ku dadaali jiray inay waddankooda ay wax u qabtaan asigana maanta dembi xun ayaa lagu soo eedeeyey taasna xaq maahan mudane garsoore adigana waad la socotaa qof aanan dembi lahayn haddii dembiil lagu tilmaamo taas waxay micno tahay adigoo qofkaas dil u geystay intaasaan ugu baxay mudane garsoore waxaan rabaa askariga kiiskan gacanta ku haya maxkamadda in la soo saaro askariga kiiska gacantan ku haya waa loo yeerooyaa hadal walba maxkamadda horteeda aan ka dhahay waxaan ballan qaadayaa inuu noqdo hadal xaqiiqa waa iska fadhiis kartaa sidaana qanacsanaa adigoo mahadsan magacaaga iyo shaqadaada garsooraha u sheeg magacaygu waa Sunil Sajdeef isbatoore buux kana tirsan booliska waxaan hogaamiyaa ciidanka dabagalka dambiyada
sawirkaas idiin muuqdana waa meesha falka uu ka dhacay waxaadna noo sheegtaa sababta adigu soo lifaaqday ninkaas magaciisa ilmahan dilkooda mudan garsoor waa kasoo horjeedaa carruurtaas iyo kiiskan maxaa iska galay ilaa hadda ma fahmin carruurta kiiskooda waa waxaan meesha isugu nimid waa wadan kartaa hore u soco ay socodayna mahadsanid fikirka noocaas maxaad u qaadatay sidii kuwa hore lagu sameeyo kale ayaa kuwaana lagu sameeyey waa la afduubtay kadibna waa la dilay jirkoodiina waa la gubay caddaymihii eedaysanaan aad ku soo hesho oo weliba aad ku soo xirta maxkamadda ma u caddayn kartaana halka caddeenoo aan hayno waa gaari madow gaarigaas madowna waddada ayaan ka qabannay gaariga aad ka hadlaysana waa gaariga falka lagu geysto soo maa haa gaariga dhexdiisa waxaan ku aragnay dhiig fara badan iyo waxyaabo kale intaas kuma ekeen dukumentiya faalsi ayaa ku jiray warqado ay ku qoran yihiin motoor lambar ayaa meesha saarnaa kadib waxaan helnay ninka gaariga iskale oo lagu magacaabo herbal fera laakiin 5 sano ka hor nin akaashsiin lagu magacaabo ayaa gaariga ka soo kireystay tali ninkaas nin dhulul badan le waa oo la yaqaano intaan kontrakti aan saxiixin waan iska fiiriyey wax walbo hagaag kadibna akaan ayaad soo xirta soo ma maya ma aanan soo xirin sababtoo ah ninkaas waxa uu ka hadlay wax jira ma aysan ahayn macnaha warqadaha qandaraas ku qornaa kuwa faalsi ayay ahayn daqiiqa aayar ii kaadi ninka feeraal lagu magacaabo inta baxay akaal ma la kulmin miyaana tali aniga ninkaas weligii hal mar ayaa la kulmay wuxuu ahaay nin gaabanoo buuran garle xoogaa waa kana dukumentiyada oo saxiixa bal fiiri tali waa kan wax walbana taleefonkaas ayaa lagu dhammayn jiray haddii howl la cusboonaysiinaay haddii la shaqaalaysiinaay wax walboo la qabanaay lacagtan gaarigaas ayaa lagu qaadi jiray beelaad mudana feeraal gaariga xagguu kasoo wada jira xagguu sagey jiray waddada weyn ee u dhow hoolka weyne shooga lagu qabta ayaan ka qabannay tali aniga wuxuu ugu dhahay meeshaas ayaa kuu wanaagsan wayna kuu fiican tahay laakiin fiiraha walwal dhanka gaarigiisa ayaa ahay gaarigiisa dabagal ayuu ku soo sameeyey wuxuu arkay guriga beertan gaariga la keenay annagan isaga ayaa noo sahlay in gurigaas aan gacanta ku dhigno dambiilaha sirtiisoo dhan aan bannaanka soo saarno ciil badanaa gudaha markaan galnana waxaan aragnay cunug yaroo 7 jir ah silsilada weynna ay ku xihan yihiin inaan la hadalna ayaan isku daynay markii aan weydiiyey qofka meeshaan keenay wuxuu igu dhahay adeerkii watay dharka suufka ayaa meeshaan i keenay shaam iyo shaamlaana meeshaas miyaa la geeyay DNA-gooda ayaa baaritaan lagu samaynayaa wax kaloo meesha aad ka hesho ma jiraan haa meesha waxaan ka aragnay dhar suufa oo isku joog ah meesha kale waxaa taalay daawadaasoo loogu talagalay qofka markuu samaysanayo geer faalsa laakiin geerka faalsada meesha muusan yaalin gudaha markaan sii galan suuf ayaan ka helnay armaajada markii aan baaranna waxaan ka helnay box ku jiraan glofiskaas kale wuxuu isticmaalaya si fariisa loo helan annagana fariisa waan wayn haddii aanan qaldanin caddeyntaada hore waxaad ku sheegtay gurigaas inaad baaritaan ku samaysay macnahayga ninkii iskalahan ka wadaa haa waxaan helnay nin lagu magacaabo akaalsiin ninkaas da'diisu waa 80 jir kalkaalis ayaa 4 saac xanaanayn jirtay wuxuu joogay guri ku yaalla beerta waxaan iska lahaa wiil uu adeer u yahay gurigaasi yaa waa wiilku adeer ku yahana fiirsin idinkoo mahadsan shanqarla iyo buuqana naga yaraya tartiib deganaanta wax su'aala mayuu kaa dhinni adigana waa mahadsan tahay adigana doodaada waa wada kartaa okay isbatoore hal mid ayaan ku weydiinayaa gurigaas baaritaan ma kor ku samaysay ninkan fariisa meeshaas kama adaan helin hadalkayga soo sax maahan waa saxan tahay xataa golofiska kama aanan helin haa hadda micnaaga waxaad ula jeedaa dambiilaha inuu box golofis u soo gatay soo sax ma hadalkayga anigu waxaan yaaba ninkan hadda u doorbiday waxyaala noocaas inuu sameeyo maxaa ku kalifaya gurigiisa inuu ku sameeyo waxyaalahaas ka gudub taas aniga iskaa weydiiye laakiin waxaan rabaa su'aal kale inaan ku weydiiyo feera wuxuu noo sheegay ninkan inuusan gaarigii siinin gaarigaasna uu siiyey nin cayilan oo weliba gar leh weliba ninkaas adinka ayaa gacanta ku dhigay ninkaana wuxuu u socday xerada agoonta mucaawinaad micnayga macmacaan inuu geeyo taasna adiga riboodkaa igu qoranay soo maha laba saac kadib laakiin ninkii gaariga watay waa uu cararay
waxaad ogaataa guriga beerta iyo waddada meesha aan ka xidhna waxaa u dhexaysa 5 kilomitir oo hadda adiga micnaaga ma waxaad ku wadaa ninkan wuxuu soo samaystay fees cayilan falkaas ayuu geystay kadibna wuu soo qabaystay dharka isku soo bedelay isla waddada ayuu ku soo laabtay ma sidaasaa ka wadaa muhiim aha taas waxaan hubaa in uu samayn karo muhiim ah ma idhaahde alloora kiiskan si fiican aad u baartay okay su'aal dee aan ku weydiiyey ninkan gaarigo isticmaal aqoon muu leedahay haa gaari yar midabkiisuna casaan yahay oo hadda ma waxaad i leedahay ninkan gaari gaduudnaa ayuu watay kadibna gaariga madooba ayuu soo qaatay isla waddadii ayuu soo qaaday wax shil ahna ma uusan gelin dharkiisana soo bedeshay qaabkiisana soo bedelay taas macquul miya dood ayaan ka qabaa mudana garsoore meeshaan shactar iyo qoslaaba lagu hayaabe ma runtaada shactar iyo qosla adinkaaba meeshaan keenay hadda waxaad leedihiin ninkan falka asigaa geystay asiga mausan geysan laakiin falkaas gurigiisa ayaa lagu geystay ninkan dambiile maahan ilaa haddana dilaagaas adinka gacanta kuma aanan soo dhigina versin waa nin daacad ah waddani ah waddankiisana wax badan ayuu u soo qabtay haddana wuxuu diyaar u yahay ciyaal badan inuu tababaro si ay waddankooda wax ugu qabtaan ereygaas adinka ilaa hadda ma xasuustiin mise aniga adin soo xasuusiyo waxa aad fiir ka sheegtay waa wax jiraan hagaag waxaas ma aaminsantahay mise shakiga kaaga jiro taas waan aaminsanahay okay waad aaminsan tahay ma xumo taas laakiin adiga sideed ugu shakisay gaarigaas madoobaa inuu saaxiibkaaga uu watay kadibna falkan xun uu geystay dood ayaan ka qabaa mudana garsoore dhib ma lahan anigana ma rabo su'aal kale inaan weydiiyo dooddiisa wuu wadan karaa warduca qabe boorsada ii soo dejiy gaariga albaabkiisana ii xiro ii loo goree garsore soo dhawow yaaqay marti ma tihide maxaa dhacan sidaanoo dhan maxaad ugu xanaaqsan tahay yaa kaa soo xanaajiye sii daa yaaqay maya maxaa u cayshoobaa 9 bilood iyo ka badan bad cabitaanka ka maqnayd iminkaa dib ugu soo noqotay maxaa kugu kallifay shooba inaad samayso ma ahayn yaa ku dhahay cabitaanka ayay hore iskaga dhaaftay caddayn oo keliya ayaad igu weysay laakiin aniga cabitaankayga marna ma joojin wayba fiicnaan lahayd inaan waqti fiican aniga adiga wada qaadano dhaladoo dhan ma aragta garsoor gab ayaanba ka siin laha aniga adiga nolol macaan ayaan geli lahayn ahey horusoco yaaqi waxaan safaynu gudaelaya yaaq adina saa hore kuugu sheegi waaya liintaadii bisbaaskaaga la iska qaado niw fiiri dalabkii daadaa ilaa iyo hadda uu kuu furan yahay aadna waa kaaga heli ninka si qaasna inaad ula shaqaysoo rabaa jikili saksaanta marka hore kuu gelinaa saksaanta tartiib wiilka haa xabale waaye tii kale aaw intay jirtaan yaab waaye adiga cunug wuu daahsan yahaa sii daahinina kale xanaa u qabanaayo aan ma ogaa koobta kale inay ku jirto saksaanta dhexdeeda aabo tiifiga markaa fiirsanaa awokatayaasha baabuuryaal qatar ay wataan laakiin adigoo qaraab lay wadataa
wiilkaygii taas micnaheeda ma fahansantaha abukaatayaasha laaluusha ayay qaataan laakiin aabbaha daacad waay olu wax laaluusha ma qaato sida supermana yes superman maya ee waa shaktiman yes shaktiman shaktimaanaba ka khatarsan shaktimaan way fiiriya shaktimaan aabbo jaakada markaa xirtay tukaleebo ekaad tukiya xataa ma ku matala dukaan waa kaan mujeedo magacayga waa aloog aswati sheebaarka cilmiyeysan ayaan ka shaqeeyaa labada walaalaha midkood adig maa baaritaan ku sameeyeyne haa labadooda todoba jiray ahayn soo maa waa saxanta hagaag markii lagu keenaya jirkooda siduu u yeelna jirkooda aad buu u gubnaa balse ugu dambayntii waan aqoonsanay baaritaan markaa sameyna kadib ayaan ogaanay dadka ay ka soo jeedaan qaabka dilka oo dhac wax ma noo sheegi kartaa waan kuu sheegi karaa labadooda ceeji ayaa lagu dilay okay jirkooda baaritaan markii aad ku soo bisay maxaa kaaga soo baxay adiga waxaa noo soo baxay carruurtaas in si xun loo faraxumeeyey markii ay noolaayeen iyo markii ay dhinteenba kadib taas waxaa kaaga sii daran waxyaabo xun ayaan arkay ilmaha meel xoog badan ayay ku xirnaayeen waxaan ku ogaanay ilkahooda ayay isku dayeen inay wax ku jiraan sababtoo ah murqaha jirkooda ku jiroo dhan ayaa baaba ahaa balayla feede intaasoo keliya maa carruurta afkooda ayaa baaritaan ku samaynay waxaan ogaanay ciyaalka cadaadis fara badan in la saaray qofkii cadaadinaya ayuu qaniinay qaniinadaasna maqaarka ayuu ku goostay maqaarkaasna baaritaan ayaan u dirnay baaritaankaasna waxaa laga yaabaa qofkaas dnagiisa in laga soo ogaado may su-aashaas aniga waan ka soo horjeedaa doodaada boos baa ku qabanaysaa wada sharaxaadaada mudana garsoore qofka eedaysanaha gacantiisa nabarkan ayaa laga helay waana kanaa meesha kaaga muuqda annagana qobarro ayaan u dirnay qobarradana waxayna dhaheen waxaani waa qaniinyo master siin markii lagu qaniinaya xanuun maa dareenta xabba su'aal kale ma qaba sheekadiinna wad maya su'aal kale ma qabo laakiin arrintan dood ayaan ka qabaa adinka hata qofkan waxaa ku caddayseen dhaawac gacantiis ku yaallo inay tahay qaniiyada ay u geysteen carruurtaas laakiin aniga waxaan ogahay dhaawacan inuu ka soo gaaray kriketka oo ciyaarayay waxaana ogahay dhaawacan inuu ka soo gaaray kriketka ciyaalka uu baraayay haddii ay qolada baaritaanka imaadaan aniga waxaan loo caddaynayaa dhaawacan inuu ka soo gaaray baroniga kriketka waa mahadsan tahay adoo mahadsan magacaaga iyo shaqadaada garsooraha waa inuu sheegtaa magacaygu waa maaya sheybaarista ayaana ahay shaqadaana muddo 16 sana ayaan soo waday waxbarashadeedana waxaan kusoo dhamaystay haddaan qaldaneen caddayntaa soo gudbisa waxaa ka mid ah eedaysanaha DNA-giisa carruurta jirkooda inaad ka heshay ahaa wiilka dhabarkiisa ayaan ka helay gabadhana caloosheeda ayaan ka helay dhiigga gaariga ku yiila baaritaanka markaad ku samaysay wiilka iyo gabadha ayaa iska lahaa soo maha waa dhiiggooda ahaa waad saxan tahay waa dhiiggooda dhiigga meeshaan ka helay maqaarkoodaan ka helay unugyadoodan ka helay eedaysanaha dhiiggiisan gaariga ma ka heshan maya kama aanan helin dharkii howlgalka u isticmaal ma ka heshan mudane garsoore eedaysanaan waa ujeedaa waa nin xariifa waxa uu sameeyna wax la qaban kara maahan tan kale maya ninkan guriga uu degnaa markaad baaritaan ku suubiso wax caddayna ma ka hesho waxyaabaan ku saabsan haa caddayn waan ka helay sababtoo carruurta lilaaya dhiiggooda ayaan ka helay sidoo kale DNA-goodana meesha ayaan ka helay dhiigag fara badan oo kalena waan helay dhiigag fara badan miyaa i tiri alloora 36 kaloo maqanna meeshaas ayaaba lagu cunay garsoore adiga bows adna waa wadan kartaa maya ninkan DNA-giisa meesha ma ka heshaan ii sheeg maya kama aanan helin meesha carruurta lagu dilay baaritaan markaan ku sameynaya waxba kama aanan helin meesha carruurta lagu dilay ma tiri beelata maya ninkan gurigiisa waxyaabaha aad ka heshay maxkamadda ma kor caddayn kartaa oo muu sheegi kartaa ahaa waxyaabaha ragga isticmaalaan ayaan ka helay sidoo kale carruurta markaan baaritaan ku sameeyana waxaa ii caddaata waxyaabahaas carruurtana in loo isticmaalay bisu caalxumo intaana iigu filan tokadaada waa dooda kartaa
run ahaanta aniga xataa waxyaabahaas waan isticmaalaa laakiin saynisyaanka heer ma waxay gaareen qofka waxyaalahaas isticmaalo ayagoosan baaritaan ku samaynin inay ogaadaan qofkaas qofkuu yahay iyo magaciisa waxa uu yahay haye taas macquul miya dad ayaan ka qabaa mudane garsoore su'aal qaldan ayuu gabadha weydiinaa jaysin adigoo mahadsan su'aal wanaagsan oo ku habboon gabadha weydiiyey marwo adigana wixii aad ka ogtahay oga jawaab maya lama ogaan karo balse qofkaas baaritaan haddii lagu sameeyo waa la ogaan karaa waxaas inuu isticmaalay in kale okay hadalka hadda waxaan u fahmay maadaama baaritaan aad samaysan ilaa iyo hadda wax caddayn inaanan ku haynin qofka aniga aan u doodayo haa mis maya ay su-aashaad ka jawaabee taas gudub biyaha ma isticmaali karaa dabcan haa okay mahadsanid ay igaraan laqeya garsoore okay mar labaad igaraan laqo mar waxaan ku weydiinaa qofka DNA-giisa haddii baaritaan lagu sameeyo qofkaas wax walba u isticmaalo waa la fahmi karaa soo maha waa runtaa haa hadda dhacaankayga galaaskan waa la heli karaa soo maha waa saxan tahay waayahay haddii ay sidaas tahay ninkan aniga u doodayo DNA-giisa ilmahaas in laga helo waa macquul sababtoo ah ilmahaas waxaa laga helay qofkaan ugu doodayo gurigiisa laakiin su-aasha waxay ka taagan tahay gaariga aad leedahay ilmahaasaa lagu baabi'iyey DNA-ga aad ka heshay ninkan kiisina maxaad ugu heli weyday okay taadaan kuu yeelay ninkan hadduu xariif yahay gaarigiisana wax caddeyn ah uusan ku reebin maxay tahay sababta gurigiisa waxyaalahaas ugu samaynayo okay jawaabta anigaa ku siinayo ninkaas gaariga ma uusan wadanin gurigaasna inuu deganaa asiga ma inkarsano hadda aniga arrinta waan xaliyey su'aal kale ma qabo garsoore war kiiskii oo dhan waa igaga dheeshan waxaan u baahanahay caddayn aan ku soo xiri karo versin waxaan u baahanahay cadkii liiska wiilka afkiisa laga hela qofka uu ahaa jawaabtaas haydarbaad ayaan ka sugaynaa hadda ma hayno caddayntaas waxaan u baahanahay maxkamadda intaanan dib ugu laaban in la ii keeno meeshaana cid ka tegi karta ma jirta habeeraatee adigana qaasaa tahay haddii aad ka seexataan kiiska faraha ayuu ka baxaa maqnaanshaha shoobaa ay maqantaan idinka raaligelinaya waa mahadsan tahay cirbad baa dheg lagu siiyey micnaha waana ay seexatay in way ka dhacday sariirtay saaran tahay kasheeriyow kiiska xaaladiisa way sii adkaanaysaa kiiskii oo idilna waxaa qasay ninkii lagu magacaabo jaysin waxaad mooddaa qarihii midida inuu hal ka dhigay warniyow kishoorow aniga booskaaga haddii aan joogi lahay kiiskan waan ku wareeri lahay qaabaan u xalliyina maba arki lahay kishoor waan ku barya albaabka hal mar iga fur maxaa sidaan iigu samaynaysaa waa idinkii qariya qofta cabbitaankii bay ku soo noqotay markaad idinku imaanaysanna way ka dhacsanayd oo sariirta ayaba jiiftay kishoorow nin aad iyo aad u wanaagsan ayaa tahay naagtaadu adigu
waad xanaanaysta dadka kale waxay ku samayn lahayn mataqaanaa duurka inta geeyaani qashaqubka camal u qubi lahaayeen ها زمن كمدان ku fikireen inaan masaafuriyo على أسف لكن قلبي أيابي إيدي كالقعلكي محبضة وقبانا سوا أنا عافي مات كيد السوعلين رب سبحانه وتعالى نفط إيقا مقاضه قال له سهل أمور حالته وعلستحي هاي أو قبل كاتياش تعود باللعبة garsoore mar labaad ayaan rabaa inaan u yeero gabadha dhiigga baaraysa ee magaceeda lagu magacaabaye maaya caddayn buuxday noo haysaa mudan garsoor ka soo horjeedaa in arrimahan hor leeguma sheegin maxaa dhacay abukaataamid miiska soo saar caddeynta hayso adiga kaalisaanoo dhan maxaa iigu xumaynaysaa caddeynta ahay anigaa miiska saaraya waa kana wax walba caddeynaya wax kuu dhiibatay haddaad caddeyn soo heshay abukaataa kaa soo horjeeda jason maxaad ula wadaagaysa in caddeynayso mudane garsoore caddeyntan aniga xala ayay isoo gaartay tan kale qof ayaan dembi ku eedaynaynaa aniga inaan asiga tuso waa raba laakiin asigaa iska soo orday haddana fiiri okay dhib ma lahan maadaama sheekada wax kale iska beddeshay ani waxaan ku khasbanahay in laysiiyo 3 isbuuc si aan wax walba u soo xaliyo may waa nagu badanta 10 maalmood baan ku siiyey mudane garsoore taas macquul maahan wallah aanan maalin kuugu daraynin adiga ii soo har haddaad markhaati hayso waqtiga loogu talagalay maxkamadda waa inaad keentaa يشبال شرما محكمة اللغة باهي هاي inta meesha aan joogo waxaan ballan qaadayaa kelmad walbuu ku hadlaya run inay taysa been ahayn garsooraha waxaad u sheegtaa magacaaga iyo shaqadaada magacaygu waa yashbal sharma waxaan jiraa 41 sano waxaan ka tirsanaa jiray ciidanka dabagalka haddana waxaan ahaa ganacsaday waxaan joogaa dalhiya adiga iyo fiir xiriirka idinka dhexeeya muxuu yahay saaxiib baan ahaan jirnay hal meelna tababar waan ku soo wada qaadanay hore ma wada shaqayn jirtaan labadiin haa taliya kashmiir ayaan howlgal ka fulinay markaas kadibna fiir wuxuu bilaabay dharcad ahaan inuu u shaqeeyo markuu sirdoonka noqdo adiga shaqada ma joojisa maya taliya aniga xabad ayaa igu dhacday markii dhaawacaan ka soo bogsadona waxaan arkay fiiro dharcad ahaan u shaqaynayo marka hol aan qabanayna wuxuu la baxay ranjiid wuxuuna ku shaqaysanayay wariye ahaan anigana sabar qaado u ahay waayahee ciidannimadiisa wax ma nooga sheegi kartaan wuxuu ahay tababare ku-xigeen oo maxishooda ah wixii maskaxdiis ku soo dhacan waa uu samayn jiray ninkii fiir lagu magacaabana waxa uu dhaqmayay nin wax walba soo gebagabayn kara oo kale waan ka soo horjeeda mudane garsoore waxyaaban lagu eedanayno garsoor abukaataan nagala hadal waxaan rabnaa xaqiiqda iyo caddeynta dhabta inaan bannaanka u soo saarno markaasoo annaga dood kale la gelina iyo waxaan loo joogin naga qabaya ninkan waa lagaa qabanaya adigana su-aasha muhiimadda oo keliya ninka weydiiye waqtiga naga dil amar waa fulin oo keliya maxkamadda waxaad u sheegtaa shilkii dhacay oo wejigiisa qaabdarrada iyo xumaanta uu sameeyey fiirsiin aad ku ogaatay anigii fiir waxaan dabagal ku hayn nin ganacsada ah waxaan ugu shakaysanay inuu yahay burcad kadibna waxaan ku aragnaa dabeecado xun wuxuuna aad u jeclahay carruurta fiir waxa uu suurtagashay nin ganacsada inuu la kulmo wuxuu ahaa nin aqli badan markuu soo baxayana ababaay inabacadimaan carruurta ma jeceshahay bood ziyaada iska haysa sawirradan mar kale ayaan is arki doonnaa baay nio saxawo sawiradan saa u fiirinaya oo kiyaalayga nambarkiisa wuu sii kordhay waadna og tahay cambaha markuu yaraya bisilkiisa zaa'id inuu macya noocaasoo kale dili ayaa laga helaya xalkeen haddii aad u baahan tahay aniga ayaa dili kugu keenaya waqti xaadirkan maalin maalmaha ka midane ninkii ganacsada ahay booliiska ayaa gacanta ku dhigeen gurigiisa marka baaritaan lagu sameeyey 2 cunug oo meeda ayaa laga soo saaray carruurtaasna dhulka ayaa lagu aasay ninkii ganacsada ahay wuxuu sheegay arrintaa inuusan lug ku lahayn uu ka dambeeyey nink lagu magacaabo ranjiid dilka carruurtana uu ka dambeeyey markaas kadibna ranjiid waa la waayey madaxdana waxay igu amartay in aniga dib u soo laabto wuxuu ka dhaadhiyey aniga maskaxda in ligaaga jiro oo aan ahay nin waalan anigoo sharafteedii sumcaddeeda ilaashanayna markaas waxaa go'aan ku gaaray shaqadaa inaan ka fadhiisto waa mahadsantaa su'aal kale ma iigu kaa noqoto abukaat raaxadaada qaada bal
mudane sharmaa adigu waad la socotaa soo maahan ciidamada sirdoonka sirtooda inay banaanka keenaan mar walbo inay mamnuuc tahay haa mudane haddana sheekadaada way qaldami kartaa soo mogid dad ayaan qabaa garsoor laguma ogole fariiso dembigan foosha xun saaxiibkaaga markaad ku eedeynaysid adiga nafsadaada miyaad badbaadinaysa mise dan mudane kale hadalba leedahay aan kuu sheegayo waa xaqiiqo carruurtaasna markii hore naag ayaa usoo dhiibi jirtay carruurt may dhahday okay waxay ii sheegtaa weliga adiga ma aragtay viir oo carruurta si qaldan ula dhaqmaayo maya mudane okay adiga hool ayaa lagu diray howshaadana qabiye aad ugu soo tagtay laakiin viir howshiisa wuu soo dhammaystay weliba dhaawac ayaa ka soo gaaray adigana booskaaga ayuu buuxiyey waxaasna warqadaha ay qoran yihiin adiga may garsan tahay maya mudane maxay dhahday maya qofkani waa qofka adiga noloshaada badbaadiye maantana ma waxaad doonaysaa qofkan dil toogasha inaad ku xukunto abaalkuu kuu galana si fudud miyaad ku ilowday ma waxaa artaa dembi u soo gelin dusha inaad ka saarto ninka aad rabta inaad badbaadiso aqoonu ma lihi waa mas dadkana ayaguna ayuu hubsiiba guushan uu soo gaarad arkaysaan waa dig fara badan u tahay ولا صوص عن كده قيلنا كده صوص عن كده دجان كده ورصوص عن كده قيلنا كده صح خالتي سلام مرسيو يلا دافين maxkamaddu waa inoo xiran tahay run ahaantii xaaladda sida hore way kasii adkaatay adigana dembigaas inaad geysatay way kuga caddahay ileen cunugaas yar maqaarka afkiisa laga helay iyo dnaga way isla hadeen ileen dngaas iyo kaaga way isla hadeen mudane viir kolley aniga waxaan ku khasbanahay dna-ga la helay inaan baabi'iyo laakiin marka hore waxaan ku khasbanahay u s a dna-ga aan u diro kadibna warbixin been ah inaan ka keeno hayehe adiga ka soo fikir adigana go'aankaa sugaa looma baahno aniga ayaa bixin doono waayo adiga darteeda waxyaabo fara badan ayaad u samaysay taasna waan kaaga mahad celinayaa may ukunta aadam lagugu talagelinaan ku dhahay hore le u soco
maxaa ku dhacay abukaate ninkaan aad u jeedo jig xoog laayaa soo gaartay balse nasiib wanaag madaxa waxba kama gaarin sidaas ayuu ku badbaaday maanta hortaada ku jiifaa war ninka xaaladiisa ka warrama xaaladiis way liidataa haya hadda labadii abukaate waad hor fadhidaan dacwadda ma furnaa oo ma sii wadnaa mase waan joojinnaa si kasta ha kugu qaadatee ma waxaad doonaysaa kiiskan inaad ku gelaysto weliba adigoo helay caddaynta d n a-ga mise wax kala jiro jaysin waase kiiskaana qofka ka dambeeya asigoon joogin in laga doodo aniga qalad ayaan u arkaa haye anaga runaanta ogna abukaatiisana tahay xaqiraadna maba kuga hayno laakiin ninkaas xabsiga muxuu ku sameeyey asiga ayaa dadka dulmiyey weliba il ayuu riday kadibna wax allaala wix ay doonaan dadka samaystay waxaasoo dhanna asiga ayaa sabab u ah sababteedana asaa lahay dagaalka asaa bilaabay ha laakiin waxa macquul ahaan lahayd ninkaas meeshaas inuu ku dhinto adigana kiiskaaga hadhow waa dabooli lahayd oo meesha aad ku guulaysan lahayd mudane kumaar si fiican ii dhegeyso adigu waxaad tahay qof daacada qasad maahan sidana xumaanayo kale adigana nata xumaateed dambiilahana mar walba wuxuu ku wanaagsan yahay dembigiisa in lagu qaado laakiin qofka aniga u doodayo hadda wuu xanuunsan yahay waxaan rabaa intuu kusoo caafimaadaya in waqtina la siiyo eedaysanaha jaysin uu abukaataha u yahay isbitaalka marka uu ka soo baxo ayay dacwaddu inoo bilaabanaysaa mahadsanid mudane cabitaanka markii laca wax laga helaya adiga ma ka saysaane xoogaa awood ii firfircooniyaa laga hela adiga dhan faxfaxa noqon kishoor meeshaan maxaad ii keentay maxaanse ka qabanayaa sababtoo adigaa jeclaystay meeshan inaad timaado maxaan sameeyaa cabitaanka dan ayaa isiinayso haddaan cabin anigoo dhan waa cabsanayaa sidaas ayaa kuu wanaagsan baraatika ayaad samaynaysaa kakabashadan iyo baladan aad ku dheggan tahayna iska dhaaf ayadaa kuu roonay cabsida aad ka sheekeynaysidna soo maha keligaa ma annagaba waa cabsanaynaa yaa shoobaa maxaa dhacay intaana bixin waxaa rabaa hal mar jagle inaan ka siino shoobaa hay dhibin shoobaa ii dhib hay dhibine orod hadda axay dowladda hindiya inay dadka kala socdo waa la joojiyey doorashadana si xur ayaa loogu qaybgeli karaa hadda dadkina waa xur xerukaadiya halo maxaad idhahday fiir maxaa ku dhacay maxaa dhib ka jiro hagaag ninkan xawaashiisa haddii aan kaaga sheekeeyo fiisikaal ahaan aad buu u wanaagsan yahay balse maskaxdiisa maba shaqaynayso ninkan xanuunkiisa annaga waxaan u malaynayn inuu yahay tarooma balse tarooma waa ay ka gudubtay naftiisa ayuu dhibaataynayaa wuxuu rabana wuu samaysanaa habeen habeennada ka mid a waxyaabo la yaab leh ayuu nagu sameeyey ninkan qolkan waxaa iska leh fiirsiin waryaa jinooli meesha maxaad qabee sacan ku dhahay war sacan ku dhahay waa dhaafan ku dhahay sheekadaan aa wado shirkaasi marka hor dhaca kadib subaxdii ku xigta arrin kaloo la yaab leh ayaa meesha ka dhacday intuu aadayna dhibka ku haysta maxaa waayene
aniga magacayga ma kasaay ma ii sheegi kartaana adiga magacaaga waa fiirsiin ficiladiisana waxay ahaayeen ficilo la yaab leh wuxuu doonana wuu iska samaynaya ninkan waxyaabaha uu samaynaya waxyaaba dadka argagax gelinaya ay ahaayeen tilaabo walba oo qaadana annaga cabsi ayay nagu abuuraysa laakiin maalmo kooban caadi ayuu iska ahaa ciddoo doono ayuu iskala sheekaysanaya wax uu rabana wuu iska samaysanaya maalin maalmaha ka midana ayaanu imid waana soo booqda waxaana arkay arrin la yaab leh cidyaha wasakhay naqdeene wax lagu nadiifi mala helaa ma ii keeni kartaa cijijaraa rabtaa soo maahan anigaa kuu soo dhiibaya isla habeennimada ayaan u soo laabtay waxaana rabay xaaladdiisa inaan ogaado run ahaantii cijooyinkiisa markaan fiiriyey si qurux badan ayay u jartay kadibna waxaa dhahay istaag hore u soco socodkiisa markaan fiiriyeyna socod la yaab leh ayuu ugu noqday body languagekiisana waxyaabo badan ayaa laga dheeha karay socodkiisana socod ciidan uma ekeen qaabka u soconaya annaga waa la yaabnay subaxda ku xigtana maskaxdiisa ayaa u soo laabatay caadi ayuu ahaa magacaygu waa xasuustaa ka waranaya mararka qaarkii afkaa i dafaayayno laakiin hadda waa faraxsana oo sheeko cajiib waaye magacaaga noo sheeg bal haddaa xasuusato jaaru reenaa waay dharsaan oo kale aan mar walba qaadan jiro oo saan u dhartinteydan dheer ayay ahayd ka warane laakiin hadda ma aqaan runtii maartoon habeenada ka mida ayaa u timid waxyaabahay aragtane waxyaaba nolosheeda inta ka nimna ay loobi karta maaha ma la kulmi karaa waa ku tusi karaa igra noqda fiir sidee tahay okay fiir hadalkayga si fiican u dhegeyso ciyaartaan maahan mid kuu soconayso dilkaad carruurtaas u geystaan lagama yaabo si fudud adiga in lagu wacfiyo waxyaaba adeeg samaynaysidna dhibaato ayay kuu keeni karaan kiiska intaan soo dhadhoweynana hadhow wuxuu noqon doonaa hal bacad lagu lisay dadkaasna waxay haystaan caddayn sax ah marka aniga horaan kuugu sheegay waxaan ku dhahay isdeji wax walba anigaa xalinayo ee matalaadan beenta ah iga jooji oo ku baryaa hadda waad fahamta soo maaha okay iyaa waayana adiga iyaa tahay iga aamus ayaan ku dhahay isdeji bliis adiga magacaagu waa fiirsin aniga jaaru reenaa la dhahaa marar badanaa idin sheeg jaaru reenaa la dhahaa koley adiga waxyaabahan aad wado maxkamadda lagama yaabo inay kaa qaadato ama jaaru ahaaw ama fiiru ahaaw
marmar maskaxdayda waxay soo xasuusataa haye maxaa soo xasuustay ii sheegbe markii aan baska sugay kadibna kollejka uu geynay kollejkee ii sheegee kollejka dowladdana oo gabdhaha ambaalaha ku yaala meeshaan wax ka baran jiray kolley adiga waxaad doonta soo xasuuso laakiin ugu dambeyn waxaad ogaataa xabsiga in lagu taxaabayo balse waxaa ku wanaagsan xabsiga markaad tegayso inaad gees iska dhigto jiljilaac looma baahna dawa kuu sheegaya is ilaali aniga xabsi ma galaay ma laga yaabo inaan xabsi gala aniga war sheekada wadda qayaano cad waa niyaho aniga aabbaha buwagtiisa ayaa akhrisi jiray meeshaas ayaan abukaatinimada ka soo bartay laakiin adiga mahayno sharciga iyo qaanuunka ayaadba ku ciyaaraysaa saa doontaana ka samaysanaysaa arkumaar waa ku bari adna afkaaga kontarool waxa doontaa ku hadline jaysin haye hadda maxay kula tahay adigu maxaa rabtaa war waxaa rabtidoo keliya ii sheeg koley hadda aniga waxba kuuma sheegi karo wax walba gacmahii way ka baxsadeen saa hadday tahay anigaa waqti idiin qabanaya maxkamaddan amarka bixinaysa haddaba runta aad idiin sheego vir wuxuu bilaabay jaaru inuu magaciisa la baxo micnayga ayadu waxay bilaawday jaaru inay la baxo jaaru maahane jambala hadduu doon ha isugu yeero maxkamadda waxaa lagu keenay virsin buuna ahaanaya eeg hadda ayuu su'aalayaa aamusnaanta maxaa meesha ka socda qof walba booskiisa ha fadhiisto yaana maxkamadda rabshad iyo qalalaasa lagu abuuray tartiib minaa bannaanka idiin saaraa doonaysaan waa noo furan tahay maxkamadda mudana garsoole maayaa kan waal ayaan rabaa mar labaad inaan maxkamadda soo saaro hadday macquul tahay adigoo maasan marow maayaa maxkamaddaa lagaa rabaa dacwaddu way socotaa welina maxkamaddaa saaran tahay waxaa loo baahan yahay d n a-gii jawaabihii ka soo baxay maxkamadda inaad ka hor sheegto anugu maqaarka afkiisa laga helo markaan baaritaan ku samayna annaga waxaan helnay jawaab wacan oo lagu qanci karo weliba maqaarkaas yaa iskalaha noo sheeg fiirsiin maxkamadda si wanaagsanaa kuu maqasho maqaarkaas yaa iskalaha ii sheeg fiirsiin fiirsiin ayaa iska lahay aamusa hadda dacwaa socotee wax shakiya miyaad ka qabtaa arrinkaa haba yaraatee maya wax shakiya kama qabto abukaataha dhiggayga dooddiisa oo wada karaa isqabo kaale isdeji fariiso deganaan don't worry boqolkiiba meeqa ay dhahday 70% caddeyntaas annaga aan helnay waa caddeyn suuragal ah adiga ma aaminsan tahay dadka d n a-ga baaro mararka qaar inay qaldami karaan qalabka wax lagu baaraya ku xihan tahay taas okay ma xumo waxaad ii sheegtaa ciidamada dambaarista qofka wax u baaro loo magacaabo michael arrimihiisa ii sheeg dunida ugu wanaagsan dhag shaybaarka markii la dhaho anigana waxyaabo fara badan ayaan isaga ka bartay khibradna waan ka helay runtii waaba arrin fiican ninkaas dii khibradda leedahay laakiin ninkaas wuxuu noo soo caddeeyey baaritaanma ku sameeyey inay soo baxday 50%. 5 daqiiqo waqtiga isaga haddii aan la qaato jawaabta 70% soo baxaysa laakiin aniga ninkaas haddaan waqti la qaato 20% oo keliya ay soo baxayso laakiin saynisayaanka wax lagu yaqaanaa
jawaabta inuu ka keeno boqolkiiba boqol laakiin saynisyaanka marba hadduu u keeno boqolkiiba konton aniga jawaabtaas ilaa hadda xaggiga kama dhammaystirna waa qabiyo ninkaas saynisyaan mahane ee waa faalilow garsoore 50-50 iyo ninkaa wuxuu sheegaya meesha maba yaalin mana loo baahna gabadha caddeemihii dhiigga ay ka soo qaaday iyo maqaarka waxay ku caddaysay inuu leeyahay ninkan dembiilaha meesha fadho ee viirsiin la dhahaya asigaan iskale ama 50 ha ahaata ama 70 ha ahaata dembigaasoo dhan waxaan ognahay kaas magacayga ma ahaan maxay dhahda ku celi ama ilahadashid magacayga jeerow reenaa waay kulaajka ambaalaha ku yaala markiin joogi markiina baskileetiyaan ku aadi jirnay ka waranay maame qasabaa ninkaan waxu sheegay qasbina daadalkiisa watee ma og tahay adiga aniga xabsiga markii ku jira intaa liiga dhuftay intana waa liiga dhuftay feeraha liiga tumi guriga inaa aadaa iska rabi lahaa ifasaxno harsasha iyo hooyasha ma ninkaas ku fiicayaan aniga inaan baxaan rabaa miyay fasaxi kartiin arigastakaan ku dhaafir garsoore ila dhegaysa ninkan waxa uu sameynaa jiliinki ooba jiliin kale kusoo dara sheekooyinka filimka lagu jira ee kontak ribi lagu qaadayo meeshaan noo keenay maymay mudan ka joog ayaan ku dhahay isdaji dotaalka igu yar tartiib hala fariisto waxaan dhiig maahan wasaq waayaan khay aan iska bixi maxaa kugu dhacday waraas dilin maxaa qaldan wax walba horaan idinkuugu sheegay yaaqay horaan idinkuugu sheegay qofkaan uu dacwoonayo cudurka tromiamsdaramonooda mudana garsoor waxaad ii sheegtaa sabab ninkan waxyaalaan muxuu u samaynayaa waxyaabaha xabsiga lagu samaynayana muxuu u qariyaa mar walbo iyo dhibaatada aniga waxaan aaminsanahay qofkan inuu u baahan yahay in xoogaa jaanis la siiyo saa hadday tahay isbitaalka ayaa ninkan dib ugu dirayaa dhib male yaqa ninkan maku handida wax horamo ku sheega miska ogolaay adina isku galasho mana meeqa marqaatiyaa ku waarsan adiga bal bannaankeen war khubradii qaniyada caddaysa ayaan ku hayaa waa kun halaanay igu dhowan yihiin yaaqay qofkan aad u dhiban yahay maxaad ku hadlaysaa jaysen aniga hadda waxaan u baahanahay ninkan wax lagu soo eedeeyey in iska joojiyey kadibna la iska fasaxo marka adi waa walataa umaleha war nin laba qofood dili maartaa in la sii daayna haa sababtoo ah ninkan anigu dacwoonahay ninkan ma ahan qof kale ayuu ahaa intuu maskaxdiiska soo laabanaysan waxaan jeclahay kiiskan in iska soo afjaro mana sii wadi kara aniga garsoor ninkan qodob inaad la tiigstaa loo baahanya maadaama uu dafaray kiiska adiga aad ka doodaysa tan kale waxaa loo baahanya ninkan inaad cinqaabtoo ganaxdo adiga midaas ma samayn kartid ninka aniga aan doodaa jirkiisa oo keliya ayaa maxkamadda ku aragnaa laakiin maskaxdiisa ma joogto qofkaasoo kalena waxaan ku tilmaami karnaa inuu yahay maqana jooge intaba waxa uu ku hadlaya ninkan teeda kale aniga waxaan aaminsanahay sharci ahaan marka loo hadlo qofka dambiilaha in dembigiis lagu qaado laakiin qofkan maskaxdiisa maba joogto maxaa dembi lagu qaadaa sidaa darteed waxaa la wanaagsan qofkan in iska fasaxo waxa uu ku hadlaya suurtagal ma sharciga ayuuna rabaa inuu ku dheelo ninkan horta waxaad adiga wadatid iyo saaxiibka waxa uu samaynayo inay run yihiin inay ban yihiin in la kala caddeeyo ayaa loo baahan yahay sidaa daraaddeed sharcigu waxa uu noo oggolaanayaa inaynu takhtar psychologista u qabanno baaritaanna ku sameeyo weliba annaga dhanka iyaga ka socda soona xaqiijiya waxa meesha ka socda hadiyadan adigaa kuugu talagalay jaaru waa ku soo baxaysaa maxaa i dhahdina jaaru alo bahaye miigi badbaaday soo hadal nio adiga waxyaabaan aawad briyaan maxaa wax lablabada maqlaaneen waaxay madaxiisaan xolba u samaynaa adiga hal mid ayaad ilowsan tahay aniga xataa abukaate ayaad ii tahay marka vir waxaan askagidda warwareejinaysa naga daaniyo yaakhay ma war adiga inaan kula sii shaqeeyo hambalyo maadaamaad iiga guulaysatay sababta mataqaanaa aniga sidaadoo kale ma dhaqan kari
ninkan waxaa lagu magacaabaa doctor nando isbitaalka waalida ayuu ka socdaa ninkan waa jason eedesfaaciya ninkan amiid kumar baa la yidhahdaa isna waxa uu dagaalamayaa dadka dhibanayaasha run ahaantii kiiskan aan ku warina ayuu garab naga siinayaa saasaan ugu yeeray maadaama aan idin caawinayo waxay la mid tahay anigoo nafsadeyda caawinayo aniga laftirkeyga meeshaan waxyaabo fara badan ayaan ka baranayaa haddaan u gudubno ninkan xanuunka haya waa xanuun nafsiyan ah xanuunka qofka markii jugta laga badiyo ayuu zaa'id u kacaa laba siyaabood ayaana qofkaas lagu arkaa in dabiicaddiisii dhaqankiisa u beddelmo ama qofka inuu isku dhex yaaco oo jahwareer fara badan uu ku imaado sida hadda xaaladda fiir ee tahoo kale dhib in loo geysto waa istaalaa ilaan qashaad iyo fawda baa saa bilaabay adiga sidaa u hadlin doctoorka innagaa u yeerana waajibaadkiisana ha guto cilmi nafsiyan iyo mental markay noqotoba waa doctor khabiira doctor waxaad ii sheegtaa ninkan qaabkuu meeshan ku yimid iyo qaabka u dhaqmaya isma lahan maxaa keenay ilaa haddan fahmin taas koran kuugu soo xusay waa sidaan kuu sheegay xanuunkan waxyaabaha uu sababa ayaa waxaa ka mid ah qofka dabiicaddiisii dhaqankiisa inay bedelmato ama maskaxdiisa ay titirmato doctor soo macquul maan qaabka u dhaqmaayo iyo qaabka hore ugu dhaqmi jira intaba inay maskaxdiisa dib ay ugu soo celiso reelo waaye dacwadii aan dib ugu laabanayna markaas hadda waxaana looga baahan yahay viir yaraantiisa xanuunkan inuu saameyn ku lahaa in kale inaan soo kala ogaano haddana waxaan gudagalaynaa qaabkii aan ku ogaan lahayn cudurkan yaraantiisa inuu saameyn ku lahaa in kale markaas waxaa noo soo baxaysa ninkan haddii uu jalliin wado iyo haddii kale waan kala ogaanaynaa okay taladaada waynu qaadan walwalki iska dhaaf aniga doctor nandiya ayaan ahay adiga inaan ku caawiyaan halkaan u imid maxaan kuugu yeeraa ii sheeg bal magacey jaaro waaye jaaro reenaa waa ku salaama jaaro adiga meeqa sana ayaa jirtaa soddon iyo labaa jira deegaankee ka imaateen anaga kashmiiraan ku nooleen saaxiibkaygan meel aan isla degnayn cunug yaroo la ii dhalina waa ii joogay saaxiibkaa magaciisa ii sheeg bal jaaro vinod renaa lahaa wiilkayga aadan uu xiisi ma og tahay horta adiga iyo saaxiibkaaga iyo cunugaaga waxaa loo baahnaa hal meel inaad ku wada noolaataan meeshaan maxaad keligaa ka qabanaysaa taas ma sheegi kari aniga ina xanuunsadayaa laga yaabaa oo aniga oo xanuunkaas isbitaalka la ii keenay markaan caafimaadan xabsiyaa galeyaa lii dhahay ay aamin yaaka aniga wax aan sameeyey malahan waa lii naba noo yaale laakiin aniga waxaa lii sheegay adiga magacaaga viirsiin in la dhaho haddana aad ku eedaysan tahay laba cunug dilkooda soo sax maaha aniga guriga inaan aada iska rabi lahaa meeshaan runtii meelo fiicna saaxiibkayga igu waxayaaqay runtii saaxiibkayga waa i wadi lahaa gurigoon i geyn lahaa caafimaadkayga ad okay waayno hay dhib male laakiin saaxiibkaaga lambarkiisa ama ciwaanka noo sheeg asagaan u sheegana kadib si uu kuugu imaado 84 eber 8 waay nambarkiisa mar kale iigu celi bal lambarka 84 eber 8 waay ayam ku celinno iyo waxyaaqay asaa ii imaanaaye garsoor meesha ala fiiri walwalki iska daa everything will be all right halow adigoo raalliya qofka aniga ila hadlaya ee khadka ku jira vinod raynam yaa mase waa qof kale ma la hadli karaa idhibno juro isawya i weydii adigoo raalliya xoogaa waan ku qastaan u malaynayaa anigu waxaan ahay xaakinka bushaan from laknow halkaasaan joogaa maxkamadda adiga ma guursatay gabar lagu magacaabo jayru rayna
anaa la hadlaa ii dhiibaya akhay jiiru waa kuu baahan dheh isku day laknow inaad timaadidniyo garab ayaynu kaaga baahannahay soo dhaqso ninkan jaaru asaga ayaa hore u qabi jiray kashmiir markay joogeen ayay ka soo carartay dee haddana sheeka waxay taagantahay anigu waxba igama qusayaan arrintaas iyada amana imaanayo laakiin idinku waxba ha ka walwelina aniga ayaa xal keenaya mudane kii ciddiyaa lagu sifaynayo mahaysin yaakhay si ciddiyaa dhan wasaq wasaq ay noqdeen mujeedido qarrafaa ka yarowsaa هاي بالرامو شام مبهني يا يا مدني هيا قرصورة بل iska waran warka isi adiga dhakhtar ayaa dhiigaysa dhakhtarkan wuxuu dhahay waa inaad is ilaalisaa mar walbeeto laakiin jirkayga haddii la baaro ma ogtahay waxa laga helaya qalbigayga dhexdiisa ceel cabitaan ayaa ka dhex furan ka waran garsoore kishoor looma baahna wejigaaga inuu sidaa noqdo isfurfur yaaqe aniga mar jecli ma ogtahay garsoore saan inaan kugu arko mar walbeeto waan ogahay kiiskan inaad ka walwalaysid laakiin hal mid ma ku dhahaa garsoore aniga waxaan kaa rabaa go'aan walboo gaaraysid mid qalbigaaga ka soo baxay in uu noqdo aniga xal rii aan arkay weliba adigoo carruurtaas dilaayo koley aniga ma sheegi karo waxa runta ah iyo maxkamadda go'aanka ay gaari doonto balse aniga waxaan ogahay adiga qalbiga inuu dhaawac ka soo gaaray oo weliba xanuun badan aad dareemayso इसलिए अभी ये केस में dartadaan u dagaalamaa jarow ima qalbo adi waa nuuroosaaya adi iskaabula taymayno awliya makaani gaarigii u geexay mudana waa ku baryaa iga raali noq aniga waxaan u malaynaya adiga inaad ila kaftamaysid laakiinse aniga ilaa hadda waxaan la yaabanayay jaarow ruuxaanteeda nin sidee kusoo dhexgeli kartaa aniga hadda xaas kale ayaan leeyahay cunugna wuu ii joogaa sidoo kale waxaa waaye cabsida faraha badan iska daaniyo deganaantana badi ninkan waxaa lagu magacaabaa doctor nandu meeshan wuxuu u fadhiyaa inuu inaga garab ina siiyo waa ku salaamay xaaskaaga hore sawirkeeda haddaad haysid xoogaa noo dhiibal aan aragnay diyaar waa kana ila fiire bal adiga iyo jaaru qaab nooce ku kulanteen xiriirkiinina muxuu ku bilowday runaantii labadeenna waan la isken doone ani ayadana 20 sano ayaan ka weynaa ayadana aad ayay u horeyd wayna qurux badneed
yaa diidaya marka gabar qurux badan inuu guursado familkeedana sidoo kale xaalad xun ayay ku jireen waqtigaas guurkiina goormuu dhacayna 12 abriil 2007 waa kana sawirkeeda xataa macnaha shahaadada arooska looma baahna cunugiina kood goormuu dhashayna 1 December 2008 sawirkiisa xataa waa kana macnaha shahaadadan ka wada looma baahna wiilka magaciisa waa kabiil soo ma magaca kabiil yaa u bixiyeen hooyaday ayaa u bixisay tamaam haddaad isguursateen xiriirka adigii xaaskaaga kala dhexay noocuu ahaa bal cilaaqaadkaan rabnaa inaan ogaano hay weydiin xaaladdiin aad iyo aad ayay u xumed mana ii qalmin qoftaas aniga kashmiir gormay ka soo fakatay qofta haddaan qiyaaso 10 sano ka hor ayay ahayd booliskana sidoo kale waana u tagay oo dacwo ayaan ka gudbiyay ayada caddeynta xataa waa kana meesha ku hay ninka annaga nala joogana gabadhan hadda aad adigu ka sheekaynayso warbixinta aad ka soo gudbisay run ahaantii mid la mida ayuuna siiyey isagana qaabkii ay oga soo tagtay kashmiirna ilaa hadda waxba kama xasuusta ninkan gebi ahaanba aniga xataa middaas ma oge haddana aniga qoftaas dib uma ceshan kara sababtoo ah famil ayaan leeyahay xaas kale ayaa ii joogta cunugaa ii jooga sidoo kale waxyaabahan oo kale aniga igama suuroobaan may dhib ma leh tartiib adigu ninkan baan u yeeraynaa xoogaa waynu wareysanaynaa ha baqin sida iska daa walolkan iska saar xaggaad noo fadhiisanaysa adigu indhaha wax ka daawo keliya sacan ku dhawriya fadhiisan ku dhaw fadhiiso wax waalna tahay fadhiiso waa fiican tahay soo maahan wejigaaga barbar madoobaas bayaashtee anima ku dhigano habeenkii markii seexanays caana iska mar yacni labeen ay anise u ekaadee tinta waa iska soo dheeraane markaasaan qurax naqnaamayno jamhuuruun aawe maxaa dhacay ma keenin miya music imtixaan ayuu ka maqan yahay muusikiista maa ka dhigtine abo hadda ma heesi karaa heesta aan ani kuu heesi jiray ma heesti ma barti isheekee mas ma bari gas waa goyaan maya ka matasay waa bacarare ma ka daba baxaa waa wareey sheekada xiisay leedahay meeshaan maxaa ka socda yaaq war ninkaan sheekada filmaantoo noo keenay annaga jilin ayuu noo wadaa haba jila ma xume jaaruun qaabkii u samaynaysa jilinka sidoo ugu sameeya yaasa isbara labadooda jaaruun markuu matalana sababta nin kale u cara maxay tahay run iyo been waxa uu wada qaab noocee ku baari karna waa yaabaa waa la baari karaa waa fududahay mashiinka runta iyo beenta lagu baaraa okay waayahay diyaaran u ahay baaritaankaa la sameeyo laakiin waxaan rabaa qofkaas maskaxdiisa dee soo laawi weysay in layska fasaxo oo xabsi lagu iska sheegaa ninkan mid kale ayaa jirta jahwareer arrintan ma dhexgelin saameyn ayay ku reebtay maskaxdiisu hadda si fiican uma shaqaynaysa laakiin markay shaqo bilowdo fajac ayay ku noqon doontaa waayahay aan taragarayna bal waxba ha ka welwelin waa waddada keliya oo adiga aan kugu daaweyn karo caadi iska dhig jirkaaga ha furnaado maskaxdaada ha furnaato cirka quruxda badnaa ee kashmiir soo xasuuso doogii magaaladiina ku yaalla soo xasuuso dhirta aadka u quruxda badneed soo xasuuso harihii meelahaas ku yaallo dhan soo xasuuso iyo wax walboo adiga ku farxad gelinaya waa inaad soo xasuustaa caadi iska dhig boqolka waa inaad tirsataa soo celi maskaxdaada 100 eber 99 eber 98 eber 97 eber adigoo maskaxdaada ka shaqaysiinaya waqtigii aad guursatay ma sheegi kartaana waqti hore eed nin duqa ay guursadeen duqanuu ahaa
caajisna wuu ahaa si xaddaafna waanu necbaa ninkaygana wuu ahaa reerkaygana kama aadi karin meeshaas inaan joogo ayaan ku qasbanaa kadibna uur ayaan yeeshay uurka kadib xaaladdu sidee noqotayna xaalad murugale ayaan galay kelinimo ayaan dareemay waxaanba u malaynaya noloshayda idil inay saas noqonayso anigana 20 jiraan ahaa kadibna waan xanuunsaday waxaana i weheliyey murug xanuun iyo kelinimo xaaladahaasoo dhan markii aad ka soo gudubtay ma isku dayda qof kale inaad adigu xiriir la samayso base ranjiid heestada aad bay u macdahay waa mahadsan tahay abay gabar heesta maxaa ku dhacay hee codkaaga macaan maanta ma aanan maqlin sidee wax u jiraan maxaa kaa qusaya adiga macnaha heestaada miraheeda ayaan la socdino muusikadan dhan ayaan ka garaacahay marka ka gudowe cunugaas yaa waayna anigaa dhalay leeshiga daya anaa dhalaab ku dhawayaabe waan iska xaqiijinaya runtii waan iska ogaanaya runtii wiilkaaga aad buu u qurux badan yahay ninkaaga aawaya maxaa nasiib laaya ku qabo orad asiga le u sheegna inuu fahmay uma malaynayaani maxaa samaynaysaa gudaha ma iska soo galee maxaa dhacay isagan wax walbu sheegaano hadda guriga ma joogano waayahay beri ayaan soo laabanaya laakiin heestaa iga laaban yahay igu dhufo anigana aan tirsaday midhaha ya magaca ranjiid adigana magaca jaaro reena soo celinta furaha waan kaaga mahad celinayaa gaariga furaha dadku ilooda wax walba inay dhici karaan waa inaad ogaataa ma sidaas igula talinaysaa बादलों पे गुस्ताख मौसम बह चली है झील की चादरों पे गुस्ताख मौसम waxaan isku day isagoo dhanba inaan iskaga fogaado mana rabin xitaa dib inaan uga soo laabto ले चल मुझे दूर तो कहीं आँखें जहाँ कह दे अनकही जागे सोए शबनमी कालीनों पे गुस्ताख मौसम खो रहे हैं गूंज से पर्वतों में गुस्ताख मौसम maxaa kugu dhacay caruurtaas fiicnaan lahayd caruurtaas inaan anaga dhalno meeshay wax ku iibiyaan aniga waa naqaanaa waxay cunaan ma haystaan waa caruur iska masaakiina xitaa dhar ma haystaan
sidaa sameehe waxaan isku dayay caano iyo raashiin inaan siiyo laakiin anigu waan ogaa intaas inka badan inuu Ranjit u baahan yahay balse ma aanan awoodin waxaan isaga siiyo indha sarxaadkan waa uu ku dheereeyay ila dhegeyso runtii aniga waxaan la kulmay nin taajir ah ninkaas waxaan maqlay ciyaalka inuu garab siiyo iskoolka masuuriyiina uu geeyo isaga lacagta ka bixiyo bal ka waran kuwan haddii aan wada iskoolka masuuriya aan geeyo beelo waaye reerkooda laakiin inay igu aaminayeen iyo in kale ayaanaba ka warhayeen ha way diidi lahaayeen le sidee ila tahay arrintan aniga waan ka dhaadhicin karaa runtaada miya haa reerkii ayaan waxaa ka dhaadhicin ciyaalkooda inay nagu aaminaan Ranjit runtii ciyaalkaas markii gacanta loo saaray aad ayuu u farxay wuxuuna dareemay kalsooni aad u weyn reerkiina way ku kalsoonaadeen kadib carruurtii waxaan siiyey cinwaanka gurigooda iyo midka iskuulka wixii keedna teleefonkayga ayaan dib ugu dhaafay Ranjitna carruurtii si wanaagsan ayuu meeshaad uga soo kiciyey meeshii ballantana waa u geeyey runtii labadeen aad baan u faraxsaneen sababtoo ciyaal yar mustaqbalkooda ayaan ka talinay waalidiintana halkan ku ogeyn reerkuna meel kale ayay u guureen meeshii hore way ka guureen maalin ayaan soo baxay saaxiibkayga si aan ula kulmo kadib magaalada dhammaadkeed ayaa waxaa dhacday anigoo waddada maraya oo iska socda waxaan arkay waxyaabo la yaab leh cunugan iskoolka u diray oo waxaan arkay daaqadadow ayuu taagnaa waxaan u maleeyey isla markaas aniga inuu i aqoonsaday kadib khiyaanada uu i khiyaanay ayuu isku dayay inuu aniga iga marmarsiyoodo aniga ma qaldana waan hubaa anigaas waa canugii yaqay sidee wax kuu fahamsiiyaa ciyaalka baska iskuulka ayaan saaray aayamin may aniga sheekadan ilama wanaagsana yaaqay waan baxaya saldhigga booliskan taga carruurta iskoolkaas umar hee ayna dhegayso waxaa fiican labadeen si wada jir inaan saldhig boolisku aadno laakiin maxaa naga qaldan anaga ma waxaan rabnaa ninkaas sharaftiisa inaan ku ciyaarno waa nin wanaagsan carruurtaasna asxaan ayaa u sameeyey xal kale ayaan raadinayna carruurtaas aan ku badbaadinayn oonan booliska aan waadin laakiin aniga markaas xasiloonida way iga haaday iskuulka ayaan fariin u diray waxaanba u maleeyay mararka qaarkii aragtidan in la imtixaanayo sababtoo ah iskuulka ayaan tegey carruurtana waan la soo kulmay runtii aad bayna u faraxsanaayeen adiga waad waalatay cabsi ayaad bay ugu beertay iga raali noqo kadibna booliiska ayaan wax walba u sheegay waxayna ii sheegeen magac Ranjit lahaa inaysan aqoonin runtii aniga waan jeclaaday isaga kadibna booliiska way baxeen ninkii taajirka ahaa oo fiicnaa ayay gacanta ku soo dhigeen isagii shaqaalihiisba way xireen ilaahay goorme ayaad rabtaa aniga doqon inaad iga dhigto booliska ayaan u tagay waxaan u sheegay carruurta inaan adiga kugu wareejiyo Ranjit intaan ka badan ma dulqaadan karo horta magacayga waa fiirsin Ranjit ma lidhaho waxaana ka tirsanahay ciidamada dabagalka waxaan nahay qof dharcad ah waxaadna ogaataa ninkaas aniga ma aanan ogeyn in ciyaalkaas iyo arrimahooda uu la baxsan doono ganacsada fiican ayaan u malaynaya sidaad adigu u dhaqantay haddii aadan u dhaqmi lahayn waxaad ogaataa carruurtaas iyo carruur fara badanba waan badbaadin lahayn laakiin wax walba adiga ayaa ku ciyaaray aniga wax beena weligay ma kuu sheegay war adiga qof noocee ayaa taa ii sheeg maxaase lagaa rabay
waxaan kaa raali garaynayaa maadaama aan arrimahayga wax badan kaaga sheekayn mana rabo inaan ku waayo waayo wax walba ayaad ii tahay चल मुझे दूर तू कहीं आंखें जहां markaas kadibna jacayl fara badan ayuu i dareensiiyey cabbaarna laabtiisa ayuu igu haayay kadibna qoorta ayuu iga jabiyey lama filaan wiilkaaga bal fiiri wuxuu ku soo guulaystay adigu kaa qatarsanaana awokaato qatarna wuu noqonaa aniga kaa hubo tukaha wiilkiisa sharci yaqaan inuu noqdo aaday u fiicnaa lahayd wiilkayga adiga xitaa awokaato qatar ayaa tahay waana hubaa inaad geesi tahay waana guulaysan doontaa garabkaagana waa taagannahay kevin mudane waxay rogaaday waa maasantaa mudane adigaa mudan ma ducaysataa haa mudane anigana waxaan rabaa inaad ii ducayso haa mudane ducada kiniisadda lema ku fiicno in la aado may qasabbaha meeshaasnaad aado waxaa loo baahan yahay si niyad inaad ugu ducayso waxaan kuu rajaynaya wax walba aad jeceshahay inaad hesho anigana waxaan rajaynaa dadka qaladka aan ka galay inay iskaga cafiyaan dadka ayaga qaladka ii galeenna sidoo kale aniga inaa cafiyo marba qalluubtaada haddii ay nadiif tahay wax walba waa ku guulaysanaya maantana waxaan rajaynaa kiiskan inaan ku guulaysto kiiskii maalmahan aan soo wadnay run ahaantii waddo cajiiba oo la yaab leh ayuu cagta saaray ballantiyadu waxay ahayd inaynu kala hubinno go'aanna ka qaadanno eedaysanaha dembiga ma galay mise ma galin laakiin hadda weji cusub bay yeelatay waxaynu isugu imaannay oo aan rabnaa inaynu dhegaysanno dacwadda ma sii wadnaa mase meeshan aan ku hakinnaa dhankii aynu raaci lahayn ilaa hadda go'aan saxan kama aynan qaadan
laakiin waxaan ku qasbannahay go'aanka aan qaadanayno inuu noqdo mid sharciga iyo dastuurka waafaqsan go'aankaas isaga aana gundhig waxa u ah idinka baad og tihiin waa cadaaladda haddana raggii guddiga ahaa way fadhiyaan ee xilaalinta iyo abukaatayaasha waad bilaabi kartaan abukaataan wuxuu codsanayaa dacwada in la joojiyo in la joojiyana wax wanaagsan maahanoo cadaalad darraad ka dhalanayso dadkan waxay u fadhaan meeshaan xaqooda inay helaan maxkamadda ayayna cadaalad u soo jersadeen ilmihii dhintay xataa waxay u baahan yihiin xaqooda in la siiyo intaasoo keliya maahna falkana wuxuu ka dhacay eedaysanaha gurigiisa dhiigga guriga laga helana eedaysanaha ayaaba iska lahaa intaasoo keliya maan maqaarka afkooda laga soo saarana DNA-giisa ayaa laga helay maqaarkaas afkooda laga soo saara caddeyn kugu filna garsoore maxkamaddana waxaa loo baahnaa ciqaab allaal ciqaabtoo leeyahay ninkaas in ay marsiiso laakiin maba la marsiin ciqaabtiisa maxaa sababay mataqaanaa wax kale maahan asiga ayaa isbeddel kale isku sameeyey abukaataha kiiskiisa u doodayna wuxuu rabaa maxkamadda inuu qaldo oo waxyaabahan maxkamadda ku qaldo taasna maahan mid la qaadan karo eedaysanahana wuxuuba camirtay naag hadda ka hor oo jeclaay nooceeda inuu iska dhigo ayadan ahu taagan yahay taasna intay ka dhacda mataqaanaa 10 sano ka horay kashmiir ka dhacday sharayd jilliinkeeda iyo agshimaadkeeda inuu koobiyeyna wax weyn maahanoo caan ayuuba ku yahay waayo ninkan jaajuus hore waay tababaroonu ku qabaa su-aasha kaloo meesha taaganaa waxay tahay jaaruu ninkan haddii aan tusina xataa maba yaqaan mana garan karo haddaan tusaa fiiri ila fiiri garsoore jaaruu waatan fiiri ma garan kartaa yay taa ma taqaanaana jaaruu wejiga fiir ma taqaana miya waayey sidee ku aqoon weyda fiirka ay jecleed war sheekada meeshaan ka socota ninkan asaa qoraa ka ah asaa atoora ka ah asigana atiriish ka asigana wax walba ka ah kaabaladarkaaba ii dhiman asiga le iska dheh jaarudan meesha noo fadhidaaba kasi daran waxay leedaha fiir asiga ayaaba ciijiyo mar hore ayaanba dhintay dhan kasta haddaa ka fiirisana wixii hal waay kan dembiilaha hal waaye kan dembiga loo geystana isla hal lee waaye anmaalee waala marka sheekada meeshaan ka socotana waa khayaano dacwada lagu maran habaabinaayo dembiga meeshaan ka dhacay cid kale ma geysan ninkaas asigaa ayaa geystay waana nin caqli badan oo aan naxariis lahayn barteed wuxuuna matelayaa qof shakhsiyaddiisii hore ilmaamay iyo waxyaabihii hore oo uu ahaa khayaano aad u weynaan meeshaan ku joogay ninkana u jeesta dad ayuu dhibaateeyey xanuun ayay marayaan ilaa iyo haddana adiga maba u jeedda xanuunkaas waxaana loo baahan yahay bulshada inaan lagu sii daynoo laga qabto anigana waxaan maxkamadda ka codsanayaa ninkan kiiskiisa inay xirin ay sii waddo ee weliba guda gasho labadii cunug oo hore u dilay oo kufsaday cinqaabta alaale cinqaabtoo leeyahay iyadoo loo aabbayeelen in lagu xukumo ayaan rabaa ninkan cinqaabtaasna waa inay noqotaa dil toogashaa intaasaa iga talaa garsoore abukaatiyada isaga difaaciyey mudan garsoore anigu waan oga qofkan inuu ka dacwoonayo qofka dembiilaha lagu soo tilmaamay balse ilaa hadda ninkaa ma dareensano qofkaan igu doodayo xaaladdu uu ku sugan yahay laakiin ninkan leeyahay fiirsin waa nin sharciga aaminsan weligiisana wax sharciga ka baxsan ma uusan samaynin wuxuuna taagan yahay wax walbooda aniga ma aanan samaynin ee shakhsi igu dhex nool ayaa sameeyey laakiin abukaatahan wuxuu taagan yahay fiir wax walba uu sameeyey waa jiliin iyo matalaad oo keliya sabab muxuu samaynaa matalaaddan beenta ah muxuuse dembiga ugu saaraa qof aanan dembi lahayn micniga jaaro ayaan ka wadaa aniga ma diidina fiir inuu doqon yahay laakiin abukaataha wax walba wuu og yahay maxkamadda horteeda ayuuna ka caddeeyey ilan fiir wax walba uu samaynaya waxaa ku kalifay cadaadiska iyo rafaadka uu soo maray maxaa yeelay takhaatiirta way la socdeen ninkan maskaxdiisa inaysan caadi ahayn maskaxdiisana qof kale uga dhex guuxaayo
dhakhaatiirtana waxay sheegeen qofka noocan oo kale 200 oo nooc inuu dhaqmi karo doctor Nandina maxkamadda ayaa halkan keentay baaritaan markuu sameeyay wuxuu ogaaday cudurka noocaas oo kale qofkii rent saxtaa inay maskaxdiisa ay ku dhex dhalan karto waxaana macquul ah qofkaas ilaa uu ka weynaado maskaxdiisa inaysan korin kiiskan aniga baaritaan markii aan ku sameeyay waxaan soo ogaaday veer ninka la leeyahay asigoo 3 jir ah inuu hooyadiis waay micnaheega hooyadiisa ay ka geeriyootay kadibna maskaxdiisa ay dabaqantay asigoo dhan uu isku dhex yaacay wuxuuna aaminsanaa geerida hooyadiis qof kalena iska dambeeyna oo asiga ka dambeeyo dhibka labaadna wuxuu kasoo gaaray markuu howlgal u tagay kashmiir hadalkaasna waxaan rabaa mar labaad inaan maxkamadda ku soo celiyo teeda kale asigoo shaqadiisa fiirinayo ayuu jaaru nolosheeda dhaasiiyey mudane garsoore abogaataan daqiiqada kor wuxuu gacan dacoonayay jaaru inaysan aqoonin veer wejigiisa dhabta ah waana sax jaaru veer wejigiisa dhabta ah ma aqoonsan karto sababta ma taqaaniin anigaa idiin sheegaya abogaataan waxaa ka hoos baxsan jaaru intaysan veer barin ka hor aqoon inaysan isku lahayn labadooda nolosha horena iyada waba iska ilowday haddana aniga waxaan rabaa faahfaahin dheeraad maxkamadda inaan hor keeno taasna wax kala maahan sababta jaaru ee veer u aqoonsan weysa weliba iyadoo muraayad la hor keenay wejigiisana si toos ah ay u arkayso okay hadda doctor Nandi fikraddiisa ayaan dib ugu laabanaynaa doctor Nandi wuxuu sheegay qofka hadduu fikir ka bato waxyaabihii hore u soo maray inuu iska iloowayo maskaxdana lagama yaabo waxyaabihii hore inay dib u soo xasuusto baakin ay geline meeshooda ku reebay dhakhaatiirtan xanuunka noocaas oo kale waxay ku tilmaamaan surprise memories waa kana haddana marka sidaa darteeda jaaro fiiroo dhan maskaxdeeda weeba ilowday laakiin mudane garsooda adiga marba waxaa loo baahan yahay inaad xasuusnaatid fiir jaaro inuusan marnaba iloobi karin okay muhiimadda aan ka hadalno mudane garsoore muhiimadda anigaa kuu sheegay qofkan fiir la leeyahay asigoon dembi lahayn ayaa waxaa lagu tilmaamay ciyaal inuu fara xumeeyey kadibna xabsiga ayaa la geeyey waana la fara xumeeyey waqtigaas wixii ka dambeeyeen maskaxdiisu way tagtay xasuustii oo dhanna wuu iloobay go'aan wuxuu ku qaatay shakhsiga noloshiisa badbaadin karo asiga inuu matalo haddana tabtaas ayuu taagan yahay wuxuu noqday jaaruur raynaa asigana wuxuu aaminay qoftaas oo keliya inay noloshiisa badbaadin karto mise waxaa macquul ah maadaama jaaru nolosheeda uu dhaafiyey asiga xataa noloshiisa oo way iscafinaynin inuu jirkiisa u hubeeyo maantana saas darteed ayuu jaaru matalayaa laakiin abukaataan asiga lidku ku ah wuxuu dacweynayaa fiir wuxuuna rabaa dil toogasho in lagu xukumo laakiin fiirka saxda ah maba noola joogo marka aan kiiskan ka hadalna fiir maba noolo mar hore ayuu dhintay marka maxaan ka dacwoonaa ilaad sheekaas anigu ma fahmin ugu horeyn sheekada yee ku socotaa mudane garsoor waxaa igu codsi ah kiiskan sideeda in laisku soo gabagabeeyo dacwaddaana laisoo afjaro break time ayaynu qaadanaynaa dhammaantayo hal sac kadib baan maxkamadda ku soo noqonaynaa go'aanna waa gaaraynaa sheekaduna meesha bay ka sii soconaysaa kishoor waxaan kaa rabaa qofka dambiilaha markaad ciqaabaysid waxaad ka soo qaataa sidii xaaskaagaoo kale inaad ula dhaqmaysid naftaada kalsooni ku qab niyaddooda saafiyana dembigaas ciqaabtiisa mari run ahaantii aniga muddo badan ayaan garsoore ahaa maxkamaddana waan ka shaqaynayay dadkii ugu horreeyey oo maxkamadda lagu furayna waan ahay kiis noocan oo kalena weligay ma aanan arkin waana la yaabanahay midkan
labada abukaatee iska soo horjeeday labaduba waxa ay ku hadleen gar ayay ahaayeen mid walbana waxa uu ku taagnaa sharciga iyo nidaamka iyo waxa uu ka qabo inta ay doodda labada abukaate socotay hadalkooda hal su'aal ayaa aniga iiga soo dhex baxday su'aashaasna waxay leedahay sideeda bannaanba dembiga la galay yaa geystay ma maskaxdaa geysatay mase jirkaa geystay dembiga jirka haddaan u imaado waa qolof meel iska taalla iska dayacan waxna aan samayn karin waxa ku adeegtoo ka shaqaysiiya waa maskaxda waxay rabta ayuuna sameeyaa sharciga iyo nidaamka maskaxda ay dejisa ayuu jirka ku dhaqmaa wixii ay farto ayuu si degganoo qurux badan jirka u fuliyaa sidaa daraaddeed waxaan odhan karaa jirka dembiile laguma tilmaami kara qaladna muusan geysan jirka iyo qolofta maanta innaga ina hor fadhida waa jirkii qaladka iyo dembigaba geystay waana uu ku cadyahay markhaatiyaal ayaa loo hayaa run ahaantii laakiin maskaxdii dembigaas inuu jirka gala ku qasabtay kana dambaysay ilaa hadda lama hayo waana maqan tahay waali baa lagu tilmaami karaa xaqiiqatan jirkii dembiga geystay waa uu nala joogaa maskaxdii ka dambaysa hawshan inay dhacdana waa ay maqan tahay sidaa daraaddeed anigoo sharciga iyo dastuurka ilaalinaya waxaan go'aansaday kiiskan inaan meeshaa ku xidho kiiskan waa xiran yahay dib dambena maxkamadda looma horkeeni karo idinkoo mahadsan aamusnaanta nagu kaalmeeya sidoo kale amar waxaan ku bixinayaa ninka lagu magacaabo virsin isbitaalka dowladda in la geeyo laguna dabiibo halkaasna uu joogo intuu ka caafimaadayo intaasoo keliya maahan dowladda dad khaasoo ilaaliya waa inay u xilsaartaa intuu meeshaa ku jiro haddii maskaxdiisa 1% ay dib u soo noqoto xasuustiisana ay timaado maxkamaddu amar waxay ku bixinaysaa sida ugu dhaqsaha badan in maxkamadda loo keeno laguna xukumo dilkii iyo kufsigii uu u geystay shayaam iyo shaymaalaya deef arrinta aan sheegay haddii ay dhacdo isla waqtigaas iyada ah ayuu kiiskii sii soconaya caddeemihiina waan haynaa waana dhammaystiran yihiin maxkamaddu markaas iyada ah hadday ku caddaato maskaxiisa soo noqoto go'aan bay gaaraysaa haddii uu caafimaado oo maxkamadda la soo geliyo ninkanii hor fadhiya ama jaaruu ha ahaado ama viir ha ahaado wax naga quseeya haba yaraatee ma jiraan xukunku leeyaan marsiinayna garsoorihii maxkamadda ugu horreyn markuu go'aanka qaatay dadkii dhibanayaasha ahaa carruurtana laga kufsaday lagana dilay aad buu u niyad jebiyey intaas kuma uusan ekaysan ee haddana mar labaad ayuu niyadda u dhisay wuxuuna sheegay completely inaanan kiiskan la gebagabayn ee maxkamaddu ay raartay wakhti allaalihi wakhtiga loo baahdana maxkamaddu ay dib u furi doonto haddii maskaxda eedaysane virsin ay dib u soo noqoto waa ay soo noqon weyda soo maahan waxaan isaga uu soo dhoodhoobay ay jiliink ay ka tahay sidaas ayuu ahaanaya maxkamadduna waxay ku xukumaysaa jandarkii isaga uu doortay haddii uu ka soo noqdana maxkamaddu amar waxay ku bixinaysaa in la soo qabto la xukumo waa anigoo nikiil tiwaariya kaamirada waxay haya mehesh intaas ayaan warka ku soo gabagabaynaya